السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قارئة كحنا channel kan waan salaamay soo dhawaada aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya sida quruxda badan aad noogu xiran tihiin waxaan ku asxaabay maanta waxaan idin wadaa macmacaan yar oo fudud oo laga sameeyo qumbe iyo caano waxaan ku caano qumbe aad taqaaneen oo si yar oo fudud oo kale loo sameeyay marka waxaan ku geedka runta baalkan ana waad baan u jecelahay macmacaan kasto aan sameeyo waa ku daraa wax badan waad ku artay YouTube kan oo keegagan sameeyo ku soo daray marka maantana sagi baan idin wadaa oo si yar oo kale aan u sameeyay marka la socod wanaagsan waxaan ku maadaama marmaraan macaan laga maarmayn wax yar oo fudud si yar oo fudud baa la isugu samaysan karaa marka kana caanaha lagu sameeyo xoogaa waqti buu qaataa laakiin kana anigu waxaan ku sameeyay dhowr daqiiqo uu ka fudud yahay wixii oo diyaarsan caanaha aan ku sameeyay iyo sidaan isugu dardaray la socod wanaagsan marka waxaan idinka codsanayaa walaalaha cusub walaalaha haddaan hore noogu xidhnayn nagu soo biir insha allahu tacaala wax badan naga faa'iidi doontaa rabadaantan waxyaalo kale idiin soo wadaa marka asxaabay waxaan idin leeyahay idinkuu hore noola joogana aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan aad noo dhiirigelisaan qalabka socod wanaagsan qumbahan saan u sameeyay inta wuxuu ka kooban yahay hadda ayaan inoo bilaabayaa halkan waxaa inoo yaala qumbihii shiidna ama adigu dee lasoo riifiyay shiidnaan baad iska dheh iyo caanaha macaan markaas intaasaan isku sameynaya waqti yar oo fudud baad ku sameynaysaa dad maanta dhan caana karkarin lahayd isagoo si kale loo sameynayna insha allah waan idin soo gelinay dadka raba iscaataynayaan rabidda inay baruur iyo wax ku kordhiso maadaama caanahan xoogaa sonkor bay leeyihiin oo caruurtii waxaas oo kale laakiin qofkii raba inuu isdhuubo ama aanu cunin wax sonkor badan leh kaana insha allah waa soo wadaa laakiin kan maanta waxaan ka sameeyey 200 gram oo qumbe ayaan halkaa ku shubay kala socod wanaagsan maadaama hadda ciid iyo wax soo dhawin kulli macmacaan lama daynayo kanaan sameeyey marka la socod wanaagsan marka waxaan ku shubay 200 gram caanihii kuwana waa caanaha macaaneen diyaarka yar baan ku shubay marka xoogaa taasaan isku walaaqayaa macmacaan yar oo fudud oo kaale araga buu noqday maasha allah horta anu baalkan aad baan u jeclay runtii waxyaalo badan aan sameeyo oo ku dardaraa nagii ciyaalkayga aad baan u jeclay marka imankana isagoo sidiisa aan sameynayaa kala socod wanaagsan intaasaan isku wada walaaqay si fiican baan rabaa in caanuhu u dhex galaan isku dhex walaaqayaa si fiican isugu dhex galaan xoogaa nasiiro dhex kala rabo xiir baan ku kordhiyey marka waa kan asxaab waa soo waan kuuskuusayaa halkan sanxigaasaan ku koray intaan soo yaro kuuskuuso sida waxaan ku dhihi qulaad boolka ayaan u sameynayaa kaale arag weeye walaa dadax macaan rabto waa kaas saas uman soo kuuskuusaya insha allah saasaan kusoo dhammaynayaa bahlaan iska bixiyay baashi baan ku daalin kar waayo waan iska saaray gacmihii saayar ku badbaday maad ka dhigaysaa waxaan ku rid intuu tiri baad ku dhamaanaysaa
asxaabey waa kan bahalkii waxaan ku dhaw saasaan kusoo dhameeyey maasha allah talaagadaad gelinaysa haddaad rabto saana waa lagu cuni karaa laakiin anigu iminka talaagadan yara gelinayaa si uu u yara adkaado madaban hadda cidna cunayn talaagadan yara gelinaya marka maasha allah wallahi waa bahal aad u macaan kaale arag weeye insha allah anoo nooc kale u sameeyana waa soo gelin doonaa inta ciidka ka horeysa waxyaala kale ku dardaray marka waa kaas iminka weli talaagad ma gelin wiiro jilicsan laakiin markaad abaar talaagada geliso waa adkaanayaa maad hadda doonto xitaa banaanka haddaad dhigto waa adkaanayaa dawaabkaas marka waxaan leeyahay asxaabta qaaliga channelkayga ku xidhan aad iyo aad baan idin salaamayaa muuqaalkan haddaad ka heshan sii share gareeya asxaabtina la wadaaga haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir waxaan ku uri subscribe-ka noo saar insha allahu tacaala wax badan baad naga faa'iidi doontaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu